xogtii ugu dambeysay ee dibadejinta ayaad muuqaalkan kaga bogan doontiin iyo qodobada kale oo xiiso badan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka ee Qaxootiga Dhadhaab TV waxaan iga codsanaysaa sharaf leh inaad like noo saartaan, subscribe haddii hore noo saaran subscribe saaro si muuqaalkan dad badan u gaarane noo sheegareeya waana ku baasatiin. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Ramadaan mubaarak asxaabta. waxaan insha Allah maanta diiradda saari doonaa qodobadii ugu door koronaayeen ee ku saabsanayeen dibadejinta. Maanta ah Axad ah oo ku beegan taariikh 3 ayaa wararkii u dambeysay ayaan dul istaagi doonaa wararkaas ku saabsan in maanta berito Isniin ah taariikh 7 oo Jimcada ku qoran Fly Canada oo dad la qaadi doono kuwaas oo hadda gool ku jiraan dadku isku dhex jiraan waxaan u badan yihiin dadka oo la hayo loo soo dooday Canada loo soo dooday oo la qaaday ay u badan yihiin marka wadan Canada iyadana ma yareysto dhaqaaqeeda way bilaaween iyo falaayo badan ay haddana soo wadaan bishan afraad dhexdeeda sidoo kale wadamada Mareykanka maalmihii u dambeysay waxa la soo maray CIS ama IRS sida loo yaqaano haddana waxaan maqlaynay wararkii u dambeeyay warar hoosaad oo la sheegayo in bishan aan ku jirno shanaad in cases badan la boobsin doono marka insha Allah taasna muuqaal ay soo sameyn doona iyo waqtiyada la qaban doono iyo mashruuciyadooda qodobka kale haddii u dhaadhaco dadkii saarnaayeen tabaandayaalka oo tabaandii iska qaaday oo iska wareejiyay oo farii iska bixiyay tabaandii iska dhiibay ayaa akhbaar farxad badan u ahay akhbaartaas oo ah in ayakana loo shaqeyn doono bishii lixaad shaqadooda loo soo dubadubayn doono kiisaskoodii haddii wixii yartan qaldanaa wax yar la u dhimneed xagga UNHCR u dhimneed wixii dhan waa la dubadubaynayaa bishan afraad ilaa bishanaad waa la dubadubaynaya wixii bishii lixaad ka bilowdo shaqooyinkooda toos ee loo bilaabay si wararka u dambeeyay soo gaarayaan haddii qofka caafimaad sugay haddii INS laakiin maxaan maqlay in INS dib loo soo celin doono dib ay mari doonaan wax la hayo ee loo hagaajin doono laakiin kiisaskooda kulli dhammaan waa loo saxayaa waa sida aan maqlay insha Allah muuqaalada kale waan soo ogaan doonaa iyo warbixintaas iyo taariikhda loo shaqeyn doono laakiin war aad u farxad badan maadaama dad badan ay rajadan sugayeen waqti loo shaqeynayo laakiin aytana dadkan way dadaaleen sababta tahay waa dad qaxooti rafaadsan tabaanahana dad qalad si qaldan ay ku qaateen maadaama iska dhiibeen shaqooyinkooda waa loo dardardan doonaa loo boobsin doonaa sida ay sheegeen UNHCR iyo qolada ee resettlement u qaabilsan RRC Africa maana fursad qaali ah dhammaan ummadaas oo fursadaas oo inkastoo waqti ka qaadatay haddana waa way ugu dhawaar adeegeen haddana rajadooda ay ka mir dhali doonaan insha Allah dadaalkooda iyo jihdigooda iyo sabarkooda wax walba horta calaf way dibadejinta la sheegay wadan saddexaad ee qurbaha waa fursad oo qalab waa nasiib qof walba ma baxo qof Ilaahay u qadaro mid kale insha Allah muuqaal kale ayaan soo wadaa muuqaalka soo ah sida loo codsan lahaa wadanka Jarmalka ayaa u baahan shaqaale gaaraya 60,000 in sanadkan gudihiisa ay qaataan marka insha Allah muuqaalkan wadanka Jarmalka ayaa shaqaale badan u baahan maadaama shaqaale yar ka jirto wadankaas insha Allah muuqaalka xiga ayaad ka bogan doontiin dadka loo baahan yahay shuruudaha iyo waxyaabahaas isla muuqaalka kale ayaad insha Allah ka bogan doontiin waan kuma sida asxaabta fadlan diinta soo gaartay muuqaalkaas sharaf nooga maamada subscribe noo saar like noo saar muuqaalkan hanoola sheegay insha Allah si dad badan u gaaro waan kuma sitiin insha Allah wixii kale su'aal qaybta commentiga soo